ما قوستي مالي والبوح وان شيغا dadkana iguma qaataan oo way igu yara nacaane maanta maxaan rabnaa inaan sheegno county government-ka waa horaan waa la dagaali jiray hadda hubkayga waan dhigay waxaa u dhigay markaa nimanka ka dhicisa dadka mase sanadka ha ahaado mase gabanaha ha ahaado baasha dhin baa loo qalloociyaa ogaadeenimada iga saaraan waagi hore waxaan ahaa udgoon ogaadeen markaas maxaan isku bedelaa udgoon qabiilo kale ah saa awgeed aan dib ooga dhacay laakiin taas bas ma ahe waagii ugu hore oo dagaalada bilaabadeen countiga dagaalkeena ugu weyn muxuu ahaa gabar kufsi loo geystay istaalka Gaarisa kadib aan istaalkii ku noqday istaalkii oo qurux badnaaday oo dadkii loo shaqaynayaan u tagay wayna ku maasan yihiin county government-ka marka waxaan siyaasadda markii goobta la soo istaagayo dagaal bas ma aha dagaalaha waxaan u galnaa in loo adeego ummadda Gaarisa county dagaal oo ma jiro oo soo jood dad qaar maxaa jiraan oo xogaa yar laga aqli badan yahay oo meeshii lagu heshiiyay aqoonin mise meeshii la isku dagaalay oo dagaalkii uun dawgay gabadhi saas dhaadeetii uun dhagax tuura taagan meeshii waan ka soo yara gudubnaada marka mheshimiwa Geelay muxuu sheegay inay biyo la'aan meesha tahay dawladda county government waxaan ka codsanaynaa in ay ree afweynay oo anigana aan ku jiro ilaa maamooyinka baan ka mid ahay biyo noola keeno afweyne istaalaha afweyne in la keeno daawooyin maalin hore markaan ka hadlaayay kii Gaarisa dawladda waan u sheegay aboogay nadiif inuu gaarsiiyo tuulo walba daawo oo dadka ay hadda maxaa jira istaal oo xagar jareer ah istaalkaas wuu dhisan yahay wax walbana wuu qabaa dadka daaweeyo baan leenahay dadkaas inuu noo keeno afweynena intay laadahay ha loogu soo daro ilaa waa isla anagiye markii la joogo national government-ka dadka Kikuyada haddaan ka soo qaada tusaale isma dhahaan ree hebel iyo ree hebel maxay isla yihiin ilmo Kikuyo annaga maxaa noo diidayo annagoo qadiyadeena hal tahay walaalnimadeena hal tahay isku dhiignahay oo dadna isku xugno markaan waxa ka hadlaayo kuwa badboodana jiro yar oo banaanaha taagan ma ogi nin gabyaaba yiri inuu ree afgaab ahaana ma ogiye muxuu dhahay cad hilib hadduu dhulka kaaga dhaco ama saciidoobo ninkii aqligiisa weyn yahay aqli qabo calafka ceenkaas uu ka leexdaaye anigana waxaan leeyahay caruurta yar oo ii soo jawaabaysa waa iga ceenkaas ilaa dad media wax ii soo mariya lama tartami karo ilaa aniga caaqil baan ahay soo taas maaha soo dumarka inay dadka isku keenaan maaha inta dumarka oo ila og inaan u dagaalno xuquuqda dumarka gacantiina ay tusan haddaan hal dhinac ka dagaalayno oo nahay dumar laan waxa la dhoo qabiilkeena uu dumar iyo gacmihiina ay tusan aad baa u maasantiin marka dagaalka lama wadno yaruura banaanaha taagan oo rabaan inay difaacaan dullinimada waxa leenahay hubkiina dhiga dagaal nigulama jirno waxaan dagaal ugu jirnaa gabdhaha Gaarisa county iyo ilmaha yaryar oo Gaarisa county iyo waayeelka la daryeeli waayo oo daryeelka aan u rabnaan u hilinaa inta markay tahay maamooyinka maxaan rabaa inaan mid nii soo gudbiyo gabdhaha aan ilaashano banaankan dhurbaaba jiro oo markaa gabadhaada wayso kula baadi goobi asagana daalka ka badan wuu kula baadi goobi asagana kaaga daal badan laakiin ma rabo inaa hesho dullinimuu rabaa diintuu rabaa inuu dhinac ooga dhaco ragga meesha taaganna maxaan maqlaayay ragga ma ogolin ragga udgoon way ogoshahay way xishmadaysaa walaal baan nahay inta farido waa inta adaabta la dastuurka oo dumarka xaqoodan og kuwa oo dadka raba inay duleeyaan ma aha rag annaga naga mid ah waa dulliyiin oo qabiil lahayn oo walaal lahayn oo diin lahayn oo daroogaysan qofkii raba inuu gabar yar kubsado ma diin buu leeyahay qofkii raba cunigar inuu duleeyo uu dugsi u dhigayo ma diin buu leeyahay marka anagana iska ilaalino dumar baa gabdheeda ilaashan kartaa nimanka subaxisay u baxaan habeenkii bay imaadaan annaga hadaan bilcaanahay waan isku duubnaanaynaa dadkeena waan u adeegaynaa waxaana ogaatiin udgoon markay ka hadlayso balanbala inay ree balanbala bas u hadlaynin ee u hadlayso maamooyinka joogo Gaarisa county haddaan xumaan qabo maanta ma goynaan ka hadli lahaa
ما أفوينا نيل جوج لها معانا من سنة أفوينا أنا قاله ما موينك إن وحي ومرة حبيس كده كبحه ilmaha school fees ka soo neeshaga mashimo galay waan bixinaa hadii loo baahdana oo wax oo special jirana wuu ii yeeri doonaa aan la kulubna maamooyinka bas aad iyo aad baa u mahadsantihiin